weligaa ma isweydiisay haddii maanta dhakhtar kuu sheego in wadnahaagu xanuunsan yahay maxaad samayn lahayd? waxaad degdeg u aadi lahayd isbitaal, waxaad qaadan lahayd daawo, waxaadna samayn lahayd wax kasta oo lagu badbaadin karo. laakiin ka waran haddii cudurka uusan ku dhicin wadnahaaga jirka ee uu ku dhaco qalbiga? waa cudur aan indhaha lagu laakiin saameyntiisu waxay gaari kartaa sidee ayuu qalbiga u xanuun? qalbiga lama wasakheeyo hal maalin gudaheed. waa wax walba waxay ku bilaabmaan dembi yar oo qofku iska fududay, been yar, xan yar, salaadoo dib loo dhigo, qur-aankoo laga tago. marka dembiyadu la isku sii wado qalbigu si tartiib ayuu isu bedelaa. allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay kallaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yaksibuun. waxay culimmadu sheegeen in raan uu yahay dabool ku samaysma qalbiga. sababta qalbiyada oo soo noqnoqda marka daboolkaasi bato qofku wuxuu bilaabaa inuusan dhib u arkin wixii shalay qalbigiisa gelgelayay, ama uusan dareemin dembiyada uu galayo inuusan waxweyn u arkin. calaamadaha cudurka qalbiga sidee lagu gartaa in qalbigu xanuunsan yahay? marka salaadu kugu cuslaato, marka qur-aanka uusan qalbigaaga taabanayn, marka dembiga kuu muuqdo wax caadi ah, marka aad ku faraxdo dembiga laakiin aadan ku farxin cibaadada. waa markasta aan dib u dhaceyno, markasta oo qalbigeena xanuunsan yahay. nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi fitnooyinka qalbiga loo soo bandhigo mid qalbiga aqbala fitnada waxaa ku samaysma dhibco madow ilaa uu mugdi noqdo. qalbiga diidana wuxuu sii ahaadaa mid cad oo nadiifa. taasi waa sababta ay muhiim u tahay in qofku uusan weligiis iska dhiibin fitnada ama uusan caadaysan dembiga. sidee loo daaweeyaa qalbi? warka wanaagsan ayaa ah in qalbi kasta la daaweyn karo inta qofku uu nool yahay. ku bilow toobad daacada. toobada nasuuxada ah waa mid qalbiga nadiif. sidoo kale waxaad badsataa istikfaarta, oo nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaa ka sugnaatay in maalinkii 100 jeer uu istikfaarsan jiray oo allah subxaanahu watacaala u laaban jiray isagoo dembigiisa kii hore iyo kii dambeba la dhaafay. anaka halkeen joognaa? ilaali salaadaha waqtigoodan ku ilaali. akhri qur-aanka maalin kasta, xitaa hal bug ha ahaado. akhrinta qur-aanka waa wax qalbiga nadiif ka dhiga, wasaqda iyo daboolka saaranna ka dejiya. ka fogow meelaha iyo dadka kuu fududeeya dembiyada. ha dhegaysan shaydaanka marka uu kuu sheego waxaad tahay dembiile, cibaadadu faa'iido kuuma leh. taasi waa khiyaanadiisa ugu weyn. qofka dambaaba ayaa ugu baahan inuu allah subxaanahu watacaala u noqdo. shaydaanku mar walba wuxuu isku dayayaa inuu dembigaas aad galaysa uu kugu adkeeyo, uu kugu riixo si aadan u toobad keenin. wuxuu kuu sheegayaa inaadan toobad keeni karin, wuxuu kuu sheegayaa inaad dembiile tahay. laakiin marka aan dhageysano warkiisaas waxaan ku dhacaynaa haadaan aan laga soo laabanayn. ha u ogolaanin inuu shaydaanka ku khiyaano. ugu dambeyn xasuusnow, maalin ayaa imaan doonta yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim. maalintaas lacagtaada kuma anfici doonto, magacaaga kuma anfici doono, dadka ku jecel kuma anfici doonaan. waxa kaliya ay ku anfici doono waa qalbi nadiif ah oo allah subxaanahu watacaala aad ula timid isagoo toobad keenay oo nadiif ah, oo wixii la amray sameeyey, wixii laga reebana ka tagay. haddaba waxaan ku weydiinayaa, haddii aad maanta allah subxaanahu watacaala la kulmi lahayd, qalbiga aad sidato ma yahay qalbi saliim ah mise wuxuu u baahan yahay toobad? haddii muuqaalkan uu wax kaa taabtay, kommentiga ku qor hal allahumma aslix qalbi, ilaahu qalbigayga hagaaj. dhammaanteen aamiin.